muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay dawacada. qof kasta marka uu maqlo dawaco waxaa maankiisa ku soo dhacaysa waxyaabo badan. dadka qaarkii si wacan uma arkin dawacada, inkastoo ay jiraan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo iyagu ku soo barbaaray miyiga ama iyagoo weyn tagay meelaha miyiga ayaa waxa ay had iyo jeer maqlaan oraah ka soo yeedha dadka oo in laga celiyo xoolaha dawacada lagana ilaaliyo. dardaaranka ugu badan ee reer miyigu ama dadka xoolaha iska leh ee degan miyiga iyo tuulooyinka ayaa waxay tahay waxa ay kala hadlaan dadka xoolaha la jooga inay dawacada iska ilaaliyaan. waxay sheegaan dadka qaarkii inay dawacadu tahay mid si weyn ugu xisaabtanta adhiga, markastana fursad u ilaashata. xoolaha dagnaanta ayay ku cuntaa, balse dawacadu dhibta ay qabtaa waxa weeye ma jiraan waxyaabo kale oo ay dawacadu cunto. dawacada fursadda kaliya haysataa waxa weeye inay hesho xoolo jeex lagaga tegay, mid adhiga ka hadhay, iyo inay isku daydo si xeeladaysan oo xirfadi ku jirto ay u cunto neefka. xiliyadan haatan lagu jira abaaraha, dawacadu waxay la kulantaa wejigabaxa aada xun, waxayna wareegaalaysataa goobo laga hayaamay. xiliyadan oo kale dawacadu waxay ku jirtaa waqtiyada ugu adag ee soo mara marka dadku hayaamaan. xiliyadan oo kale ayaa sidaynu sheegnay waxay ku noqotaa mid aad u adag oo waayaheeda iyo xusuusteeda markasta ku soo celiya. dhawaqa xoolaha ayaa ka dheeraada, reer miyiga ayaa ka guura, wayna ka hayaamaan. waxay ku hadhaa halkii abaartu ay ka jirtay. waxay isku daydaa inay socod ku gaadho halkii ugu dhow meel xoolo iyo dad ay joogaan. arrimaha yaab kale ee aan intii aan muuqaalkan ka duubaya dawacadan ayaa waxay ahayd mid aan cabsi fara badan ka muuqanin aniga oo saaraa gaadhi, anigoo muuqaalo kala duwan ka qaadayay. dawacada ayaa waxaa la sheegaa inay ugu jeceshahay dadka iyagu xoolahunada ama xoolaha iyagu aan si wacan u raacin, taasoo ay fursad qaaliya u noqoto. inkastoo ay jirto marmar ay gaado caruurta looga taga adhiga. dhalinyaro fara badan oo iyagu adhiga raaca ayaa waxaa jira inay shax iyo waxyaabaha qaarkood ku jeestaan. dawacaduna waa fursadaha ay ugu jeceshahay. dawacadani haatan waxay maraysaa dhul abaar ah oo geeda yaryari ku yaalaan, mana jiraan wax ay ka cunto. intii aan halkaasi annaga iyo dawacaduba ku wada sugnayn ma jirin wax xoolaha iyo dada oo aagaasi ka dhowaa. arrimaha kale ee sida weyn aan u eegayay intii aan muuqaalkani ka duubay ayaa wuxuu ahaa qaabka dawacadu u eg tahay oo marmarka qaarkood aan is odhanayay tilmaanta eygoo kale ayay si weyn ugu ekayd.